views raadis baa tahay war views yaa raadiya dadka indhahooda sixraya ee views dartii u sixraya ee illa daawado dartii u sixraya dadkaas ayaa views raadiye anigu waxaan ahay ilaahay views qofka raba. assalaamu calaykum, waxaan idinla wadaagayaa waa caddayntii aad sugayseen maalmahan oo dhan. horta marka koobaad cid kasta oo nool adduunkan ku nool waxa ay leedahay calaamad ay ka turjumaysa qofkaasi waxa uu aaminsan yahay ama waxa uu daba ordayo ama waxa uu magaranaysaay noloshiisa ku saleeyay. haddaan tusaale ahaan u soo qaadano saan haddaan maanta dhaho wax ayay ka micno tahay soo maha. haddaan saan dhaho sida dhalinyarada yaryar soo heeseesa saan maxay ka wadaan? geedaan cabaa ayay ka wadaan. okay, saanna saan soo sheegay waxa weeyaan christianska ayaa isticmaala. kasoo gudub, waxaa jira calaamado uu allah sheegay subxaanahu watacaala inaa qofka mu'minka ah lagu garto ama muslimka ah. wuxuu dhahay alla subxaana watacaala muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana. halkaa uma socdee siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud. waxaa magaranaysaa calaamad ku samaysay raadkii sujuudda. halkaa madowga raadka magaranaysaa sujuudda ayaa calaamad ku samaysay. waa calaamad lagu garto dadka mu'miniinta ee nabi maxamed sal alay wasalam raacay. okay, dadkan aan caddaynta ku hayo een leeyahay magaranaysaa shaydaan bay la shaqaysteen, aniga miyaa dhahay shaydaan bay caabudeen? may. okay, yaa dhahay shaydaan bay caabudeen? waxaa dhahay dadka iyaga la midka ah. sababtoo ah alla wuxuu leeyahay am xasiba aladiina fii quluubihim maradun an lan yukhrij allahu adghaanahum. ma waxay u malaynayaan kuwa magaranaysaa qalbiga ka buka inaanaan soo saarin calaamadahooda, oo calaamadahooda ilaahay waa maxay? walow nashaau la araynaakahum falaa caraftahum bisiimahum. haddaanu doono waanu ku tusi lahayn muxamedow ama qofkan lala hadlayow waanu ku tusi lahayn. walaa tacrifannahum fii laxni lqowl. waxaanad ku garanaysaa buu alla leeyahay hadalka ay leexinayaan. aniga miyaad iga maqasheen shaydaan buu qof caabuday ama qof ayaa gaal ah? igamaydaan maqal. waxaan dhahay shaydaanka ayay la shaqaysteen. haddaan usoo noqdo illuminaariga, qaybo badan ayay leeyihiin. qaar naftooday shaydaan ka iibiyeen oo shaydaan bay allah u haystaanba u caabudaanba ilaah camal. qaarna waxay la galeen heshiis oo muddo ayuu kusoo eegyahay heshiiskaasi oo contract ay kala saxeexdeen. qaarna haddaan tusaalahaan idiin soo qabto kuwa magaranaysa heshiiska la saxeexday waxaa ka mid ah fanaaniin raabariin ah oo muslim ah. waxay dhahaan xitaa 5% muslim ayaan nahay ama 10% muslim ayaan nahay. haddana way raabgareeyaan. illuminaarigii magaranaysaa la shaqaystaan, contract ayay la saxeexdeen. magacyadoodii hadda ma hayo. berigan heesaha iyo waxyaabaha ku waalnaa ayaa iigu dambeysay 2018 wixii ka horreeyey. waxaa kaloo ka mid ah 6ix9ine ninkan la dhaho caanka ah. waxa weeyaan nin isaguna illuminarig ah. wuxuuna sameeyaa intuu heesaha markuu soo qaadayo intuu aado africa ama meel dad madow joogaan ayuu lacaga u qaybiyaa. sabab muxuu u samaynayaa? ma ilaahay buu weji kaga rabaa? maya, dadka ayuu kusoo jiidanayaa si loo jeclaado. waa sixir ka mid ah sixirada ay isticmaalaan dadkaasi. waxaa kaloo ka mid ah Drake ninka la dhaho intuu mool iska galo ayuu dhahayaa qaata wax kasta free ayay idiin tahay. ma ilaahay buu weji kaga rabaa mise dadku inay jeclaadaan ayuu rabaa? maye jacayl buu samaysanayaa. waa nooc saan soo sheegay ka mid ah sida ay dadka u sixraan. waxaa jira dad badan oo magaranaysaay maansooniyiinta la shaqaysta ama magaranaysaay ka mid ah oo Soomaali ah, kuwa filimada soo turjuma, kuwa madax ah, kuwa magaranaysaa soo raabgareeya, kuwa soo heesa, qaar aad u fara badan. dhammaantoodana waan keeni doonaa caddayntooda maadaamaad Soomaaliya tihiin dad magaranaysaa war jecel. haddii aan keeno talow dadka mad ka fogaan doontaan? talow sixirkii budhubadhaagii sharkii waxay soo laaqayaan miyaad iskaga tegi doontaan? allahu yaclam. aniga korkayga waxa saaran in aan idiin soo gudbiyo wixii aan soo baadheen xaqiiqo u hayo. idinkana ama qaata ama ha qaadanina, shaqadayda ma aha. haddaan hadda usoo gudbo 3dan qof aan tilmaamay caddaynta aan ku hayo waxa weeyaan wejiga shaydaanka weligii yaa arkay ama sawir yaa ka arkay? wejiga ibliis sida uu u samaysan yahay halkan ka eeg. sidaa ayuu u samaysan yahay. waxaa jira calaamado badan oo dadku isticmaalaan sida labada farood oo saa loo taagay peace and love ay dadka qaar u isticmaalaan ama magaranaysaa bye bye oo kale ama inagu kala geey oo kale. waxaa jira saan oo kale.
dadku nooca doonaan ha iskaga macnaystaan waa laba calaamadood oo ka mid ah calaamadaha shaytaanka oo haddaad aragto haddaad ku qorto ibliis ama satan ama devil haddaad ku qorto googleka waxaad helaysaa taalo ibliis laga sameeyey uu faraha sidaa leeyahay waana calaamad ka mid ah calaamadihiisa laakiin istan ma garanaysaa dadka oo dhan baa isticmaala cid taqaaniyo cid aan aqooninba iska dhaaf tanna sidoo kale labadii geesay shaytaankay sheegaysaa dad badan baa isticmaala kuwa yaqaaniyo kuwa aan aqoonba iska dhaaf iyadana waxaa jira kuwa gaar ah oo ay sameeyaan keliyata dadka waxaa ku shaqo leh oo maxay sameeyaan wejiga ibliis bay gacantooda ku sawiraan wejiga ibliis siduu u samaysan yahay ayay gacantooda ku sawiraan lama gacmahooda ku sawiraan ama jidhkooda ayay ku sawiraan oo cumreyn ayaan idin tusi doonaa isaga oo jidhkiisa ku sawiraya ama lugihiisa gacmihiisa iyo magaranaysa ku sawiraya ayaan idin tusi doonaa waxa kaloo idin tusi doonaa maslax mideeya oo labadiisa gacmood ku sameynaya iyo samiixa oo labadeeda gacmood ku sameynaysa wejiga ibliis sida uu u samaysan yahay calaamada saana imse jeer baad aragteen samiixa oo saaleh te hal shay il bay tilmaamaysaa soo maaha ka soo gudub waxaasoo dhan aniga maydaan iga maqal in aan dhahay qof baa gaal ah mana iga maqli doontaan dhihina maayo qof baa gaal ah dembigaasna anigu ma qaadanayo mana dhihin qof baa shaydaan caabudaya hadalka ayaa la leexiyey hadalka ayaa la leexiyo waa calaamaduhu alla ii sheegay ama inoo sheegayba dhammaanteen in ma garanaysaa lagu yaqaano dadkaas in ay hadalka leexiyaan sidii loo yidhi maayo si kale ay u dhahaan oo liilba liil maalmihii aan ma garanaysaa ishaysanay waa kii dhahay shaydaan baad igu tiri anigoona shaydaan ku dhihin halkuu ku maqlay anigoo shaydaan baa tahay dhahaya hadalkaa la leexinaya marka waa calaamad ka mid ah calaamadaha lagu yaqaano wala tacrifannahum fii laxni alqowl buu ilaahay leeyahy subxaanahu jalla fii culaa haddaba ila daawada wejiga shaydaanka ama wejiga ibliis sida ay dadkani gacmahooda ugu samaynayaan asxaabta waa ka curadkii noo imid asxaabta waa ka curadkii noo imid indhihiina ayaa idin macallin ah dadka qaar baa waxay soo dhihi doonaan anigu halkan uma soo fadhiisan in aan u jawaabo qof youtuber ah ama qof ma garanaysaa bariis ku raadinaya waxa dadku isla dhex marmarayaan no anigu dadkaas uma jawaabayo lamana hadlayo waayo muuqaaladaydii oo lasoo goosgoostay bay iyagu meelaha ka arkeen xitaa profilekayga inta yimaadeen maynan daawanin muuqaalkayga so idinka ma garanaysaa ani waqti iskagamakiin khasaarinayo hadalna iskagamakiin khasaarinayo maalihiina bariiskiina ka raadsada midda kalen ku darayaa waxa weeyaan qof ilaahay subxaanahu watacaala viewska raba ayaan ahay qof ilaahay dartii xaqa usoo gudbinaya ayaan ahay ha qadhaadhaado ha macaanaado ciduu doonaya ha dhibo xaqa waan sheegaya waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila كان زهوقا dad badan oo filimaanta iyo waxyaabaha iyo raabare iyo fanaaniin iyo magaranaysaa madax ka mid ah oo mansoniyiin ahna waan soo wadaa cadeymahooda iyo magaranaysaa waxyaaba aad ku xaqiiqsan doonto inay dadkani dadkaas ka mid yihiin muuqaalkan intaas ayuu ka ogaya xilligay ku tahay oo nuuri